xabsiga la yiraahdo Black Dolphin Prison oo ku yaala magaalada Orenburg ee dalka Ruushka kuna dhow xuduudda Kazakhstan waxa uu ka mid yahay xabsiyada ugu xun ee ku yaala adduunka oogadiisa maxaabiista ku jirtana waxa la mariyaa ciqaab adag laakiin Ruushku waxa uu yaqaanaa xarun dhaqan celin loogu sameeyo dadka lagu helo dambiyada culus waxa loogu magac daray Hombare Madow oo ah taale laga hor qotomiyay xabsiga waxana dadka lagu xidhayay ilaa sanadkii 1745 markii Ruushka uu ka bilaabmay kacdoonkii loo yaqaanay Pugachev sanadkii 1773 waxa uu hooy u noqday mucaaradkii hubaysnaa ee maxaabiis ahaan loo qabtay xabsigani waxa dib u habeyn lagu sameeyay sanadkii 2000 iyadoo hadda ay ku jiraan 700 oo kamida dambiilayaasha ugu halista badan Ruushka waxa lagu helay dambiye ay ka mid yihiin dilal dad qalnimo argagixisanimo iyo kufsi xabsiga Black Dolphin ayaa waxa uu leeyahay 3 albaab oo kala dambeeya oo ka samaysan biro culus maxaabiistana waxa la siiyaa maalin walba 90 daqiiqo jimicsiya iyadoo mar walba baaritaan lagu sameeyo qolalka ay ku jiraan si looga eego barin la soo galiyo alaab sharci darro ka xabsiga 24 saacadood oo dhanna waxa lagu sameeyaa kormeer joogta 16 saacadood ayaa waxa la siiyaa wax u eeg tababarka ciidamada iyadoo lagu khasbo inay ku dhawaaqaan ereyga ahaa mudane loomana ogolaado in sariiraha dushooda ay ku nastaan inta cadceedu ay soo jeedo habeenkiina waa la seexiyaa asaahate waxa kaliya loo ogol yahay waxa weeye warkaysi ay akhristaan iyo raadiyayaal ay ka dhageystaan idaacadaha 4 jeer ayaa maalintii la siiyaa roodhiya maraq waana cuntada kaliya laga isticmaalo xabsigani marka maxbuuska la geynayo dhismo kale ayaa waxa laga xiraa indhaha iyo gacmaha iyadoo la doonayo inaanu ogaanin halka la sii mariyay waxaana laga cabsi qabaa in maxbuusku baxsan karo haddii uu kala barto meesha lagu hayo qofka ugu caansan ee xabsigani ku dhintay ilaa hadda waxa weeye gabadh ahayd oo u dhalatay Jarmalka oo loo oran jiray Carola Nehar sanadkii 1942 markii uu soconayay dagaalkii labaad kadib markii midowgii Sofiyeet ay xidheen gabadhani sanadkii 1936 dhammaan maxaabiista ku xidhan xabsiga Black Dolphin ayaa kuwa ku jira xabsi madaxaha ku furto loogumana talagalin in mar dambe ay arkaan leeyda xurriyadda inkastoo Ruushku leeyahay qaar kamid ah xabsiyada ugu xun ee adduunka ku yaala haddana kani waxa uu yahay mid caan baxay oo aad looga yaqaano adduunyada abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay kamid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka moobilo iyo lacag kaash ah si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga e-dahab شركة إسكارسينتا عصرية هي Somtel